السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن أو وناكسن دawadayaal meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada war degdeg oo idin ka hayna xaaladaha dalka Itoobiya iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Itoobiya waxa dagaal aad u weyn maanta uu ka dhacay deegaanka Oromada iyo deegaanka Axmaarada oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka socdeen dagaalo waaweyn waxa sidoo kale inagu soo gudbin doonaa warkeena khasaarihii ka dhacay halkaasi iyo gacan ku haynta magaalooyinka la sheegay inay qabsadeen ururka xoreynta Oromiya iyagoo goobo badan ka qabsaday ciidamada dawladda federaalka iyo ciidamada gobolka Axmaarada oo iyagana dagaalo ay iskaga soo hor imaanayeen maalmihii ugu dambeeyay waxa sidoo kale tadawadayaal warkeena kaga bogan doontaan duqeymaha waaweyn ee loo geysanayo magaalada Maqale ee gobolka Tigreega iyadoo magaalada Maqale ay ahayd magaalooyinka ugu qurquruxda badan dalka Itoobiya maantana ay holcayso iyo khasaare aad u badan oo soo gaaray dadka rayidka ku sugan magaalada Maqale ayaan warkeena idinku soo gudbin doonaa balse inteena u guda galin waxaan si qadarin iyo xushmad la idinka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar like share tan raaci waxaad sidoo kale follow naga dhihi kartaan page-kan ku leenahay Facebook mahadsanidin aan ku bilaabay dagaalada ka socda gobolka Axmaarada iyo midka kilalka Oromiya ayaan warkeena u horeynaa waxaana warkaas oo faahfaahsan inoo haya maxamed ku soo dhawow waan ogeyn dagaalo waaweyn inay ka socdeen gobolka Axmaarada iyo midka Canfarta ka Oromiya sidoo kale dagaalo ayaa ka socday balse dagaaladaasi waxay u dhaxeeyeen ciidamada dawladda federaalka iyo kooxahan kaleete ee midba ka dagaalamaya gobolkiisa laakiin hadda dagaalka waxaad moodaa inuu ka duwan yahay oo dagaalkii uu u jeedsaday jaha kaleeto iyadoo maanta dagaal weyn u dhaxmaray kooxahan xoreynta Oromiya iyo ciidamadii dawladda ee Axmaarada maamul goboleedka Axmaarada aan ka wadaay muxuu ahaa dagaalkaasi ujeedkiisuna muxuu ahaa aad baad maasanta Cabdullaahi dagaalka ka socdo dalka Itoobiya ayaa marba isku bedelay sida hirka badda oo kale dagaalku marka hore wuxuu u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Axmaarada oo isla socdo iyo sidoo kale ciidamada dawlad deegaanada laga keenay oo xoojinayo kuwa dawladda iyo xooga TDF oo ka soo horjeedo oo ay rabaan inay dhulka la simaan marka dagaalkii hadda Cabdullaahi wuu isbedelay dagaaladii waxay isku bedeleen qaab qowmiyadeed ururka xoreynta Oromiya oo nugeyn inuu dagaalo kula jiray ciidamada dawladda ku sugnaa gobolka Oromiya ayaa maanta waxay beegsadeen ciidamadii gobolka Axmaarada waxaana la sheegay halkaasi in khasaare aad u weyn ay halkaasi ka dhasheen marka dagaalka Itoobiya waji ma laha loogu hagaago hadda waxaan arkaynaa dagaalo waaweyn oo u dhaxeeya xooga TDF dhinaca kale waxaa la arkayaa Axmaaradii iyo Oromadii is jafayso dhinaca kale Canfartii iyo Tigreega is jafayo marka Cabdullaahi dagaalku waxaad moodaa in uu kolba waji hor la badyeelanayo xooga TDF ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaaladii ugu dambeeyay ee la galaan ciidamada dawladda iyo kuwa huwanta halkaasi ku sugan ee maamul goboleedyada waxaana la sheegayaa in ciidamadaasi gobolka Tigreega ee TDF ay qabsadeen deegaamo hor leh ayadoo aan ogeyn in magaalada Chale iyo sidoo kale Jafra ay hore u qabsadeen haddana waxay la sheegayaa in deegaanada degmooyinkaasi hoos yimaada dhammaan ay ka arriminayaan ama ay haystaan xooga TDF Cabdullaahi horey waan u ogeyn in balxooftan siyaasadeed ay ka dhaxeysay ururka Tigreega iyo kuwa Axmaarada balse Axmaarada iyo Oromiya maxaa ka dhaxeeya maxay tahay sababtu maanta dagaalka keentay inay iska hor imaadaan ayagana Cabdullaahi horta sababta dhowr sababood ayaa jiro Axmaara bas ma ahayn waxa gumaysanaysa gobolada kale ee dalka Itoobiya wixii ragaadiyay siyaasadda iyo majaraha u hayay inta badan waxay ahaayeen Tigreeg iyo Axmaaro heshiisa marka Tigreeg bas ma noqon kara cadawga koobaad cadawga waxa noqon kara Axmaarada xataa kaleeto qayb ayay ka ahayd arinta hadda keentay in xoogan xoreynta Oromiya ay la dagaalaan ciidamada Axmaarada waxaa sabab looga dhigayaa ayadoo aan ogeyn xoogan ka dagaalamo gobolka Oromada in ay heshiis siyaasadeed la galeen kooxahan TDF hadda waxaa la arkayaa dagaalkan hadda u dhaxeeyo ayagii Axmaarada waxaa sabab u ah maadaama heshiis ay la galeen TDF-na gobolkoodii Tigreega la duqeynayo waxaad moodaa in maadaama heshiis ay ahaayeen
oo laba urur oo siyaasadoodu hal ay tahay in dagaalkani ay ku soo biireen oo ay rabaan in ciidamada dowladda iyo walaa axmaaratoona aysan ururkan oo markaa garab ay siiyaan xogaga TDF marka waxay u eg tahay garab siin yee u egtahay cabdullaahi laakiin sabab maxamedow waan ognahay xogagan xoreynta Oromia dhibaatadii loo geystay ilaa laga soo bilaabo 1991kii jabkii loo geystay dhammaan xasuuqii loo geystay shacabka Oromia miyay hilmaameen dhibaatadaasi oo dhan ma aysan hilmaamin lamana hilmaami karo taariikhduna meel ayay ku qoran tahay waana la xusi doonaa taariikhaha noocaas oo kaleeta iyo gumaadka dadka maatida loo geysanaya maalin walba Ethiopiana system walbo imaado ama Oromo ha taliso ama Tigray ha taliyo ama Axmaar ha taliyo hadba systemkii markaa jiro iyo dowladdii markaa jirto waxay taqaanaa in ay ka cadgoosato inta kaleeta ee soo hadhay marka Axmaaro hadda systemka waxa hayo majaraha hadda Abiy Ahmed oo hayo ma la dhigi karo Abiy Ahmed hadda Oromo mar buu ka dhashay laakiin Axmaaro ayaa majaraha hayso oo maxay kaga duwan yihiin gobolada kaleeto saami isku filan baa nin walba gobol walba la siiyay Soomaalidu waa ka wasiiray qaadatay Oromadu sidoo kale wasiiray qaadatay Axmaarada iyo markii loo eego Oromada waxa wasiiro badan Oromada maxaa loogu sababeynaya maxamedow waxa loogu sababeynaya Cabdullaahi wasiirada la magacaabay iyo waxaan oo dhanba waxa weeye maqaar saar waa maqaar saar markaan ku leeyahay wasiiro power lama aha powerka waxa haysto niman Axmaara ah oo Abiy Ahmed uu ku xiran yahay oo maxal dhigi jiray guryahooda joogo oo ka amar qaato dhaqaalaha ugu badanna wuxuu galiyaa Axmaarada ayuu galiyaa marka Ethiopia dhaqaalaheeda intee aadaa meel uu aadaa adu kaale sheeg dowladdeegaanka ma wax loo qabtaad arta ma jirto wadooyin waaweyn oo ka jira iyo wax yani implementation fiican xataa koleeto ma jirto oo dadka la shaqaaleynayo ma ka jirto wax construction fiican ama dhismo fiican oo hadda ka socdo deegaanada dowlad goboleedyada kale sida kilalka Soomaalida oo kaleeto iyo deegaanada kale ma jirto wax dhismo fiican oo ka socdo marka lacagta inta badan waxa lagu dhisayaa Bahardar baa lagu dhisayaa iyo magaalooyinka Axmaarada ay leedahay maxaa kuweena magac la'aan ka dhigay oo kuwooda ka dhigay maxaa la jiray Burtaqaf marka waxaad arkaysaa meeshani in lacagta ugu badan ee dowladda ay galayso gobollo aan munaasib u lahayn marka munaasib u lahayn oo kale hadda Soomaali kilal oo kale waxa weeye third population waa hadii dhul weyn la dhahana waxa weeye second yani waa gobolka labaad dhul xagga dhul weynka ma ay ahayd Axmaara intay qaadatay in leeg inaan qaadano mise ama aan ku suxigno Soomaaliyeed ma aysan qaadanin dowladdeegaanka hadda waxay qaateen hal wasiir ayay qaateen inta loo marka cadaalad darradu waxa weeye dhan waxay ka socotaa maamulka nimanka u hayo madaxweynaha ama ra'iisul wasaare marka Axmaaro in la dagaalamo waa arrin hadda ay ka midaysan yihiin gobolada intiisa badan ayadoo aan ognahay Bishanguul Gumuz ayagana dagaal ay wadaan oo ay garab siinayaan xooggan xoreynta Oromia waa sida la sheegay oo ay dagaal kula jiraan ciidamada Axmaarada xaggan dagaal ayaa ka socda iyadana Oromada waa ka maanta dagaalka aadka u weyn u dhacay ee deegaanada aadka u faraha badan ay ka qabsadeen ciidamadii Axmaarada halkaas ku sugnaa Axmaara Liu Police Law dhinaca kale TDF waa kan Axmaara bartankeed joogto marka waxaad moodaa in ay hadda socoto Axmaara qabta ugu dambeyntii maxaa u dambeeyay duqeymihii ka socday gobolka Tigray gaar ahaan caasimadda gobolka Maqale caasimadda Maqale ee gobolka Tigray ee lagu beegsanayay xogaga TDF Cabdullaahi magaaladaasi waxaad moodaa in laga jarayo wax ay la naas nuujinayay oo ay nuugaysay in ka badan 40 sano dhaqaalihii ugu badnaa gobolada dalka Ethiopia uu ka kooban yahay iyo sidoo kale gobolada geeska Afrika oo ognahay in Ethiopia ay ka talinayso dhaqaalihii laga soo qaadayay magaaladii lagu maalgeliyay ee godadka dhulka hoostiisa ay hadda tareenadu marayaan magaaladaas Cabdullaahi dhulka ayaa la simay waxaana la arkayay magaaladaasi oo inteeda badanba qiiqa aan la kala garanaynin dadkina waxaa la sheegay in ay ka qaxeen dadkii maatidaha halkaasi ku joogay nafaqa la'aanta u dhamaanayay dawladaanta u dhamaanayay ayay haddana dawladdu ku bilowday in ay bambayso marka halkaasi waxa ka dhacay mashaqo aad u ba'an laakiin dawlado badan ayaa cambaareeyay sida Australia way cambaaraysay
United Nations sidoo kale ayagana way cambaareeyeen, human rights way cambaareeyeen, hay'adahaas oo dhan dhammaan iyo wadamo waaweynba way cambaareeyeen sidaan u sheegay wadamada Australia ka mid tahay. xagga dawladda ma ka soo baxay wax war ah oo ay kaga jawaabayso dawladahaasi iyo cambaareynta loo soo jeediyay? cabdullaahi dagaalkani hadda wuxuu u muuqdaa dagaal qabiilaysan waana la siyaasadeeyay dagaalku marka hore wuxuu ahaa dagaal gobol lala dagaalamayo dawladda inteeda kale ay midaysan tahay. haddana siyaasadan lagu duqeeyey magaaladan Maqale Ethiopia way ka shalay doontaa, waxayna uga shalay doontaa gobollo badan oo marka hore go'aankooda u ahaa dhexdhexaad ayaa xiriirka u jiri doona dawladda sida gobolka Tigray oo kaleeto. marka dawlado badan ayaa cambaareeyay saad u sheegtay, laakiin dawladdu wax wara oo ay ka soo saartay ma jirto. laakiin dawladdu go'aankan ay ku burburisay magaalada Maqale waxay kala kulmi doontaa shalayta aad u weyn. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa Maxamed oo inooga warbixinaya xaaladaha dalka Itoobiya. daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin la joogitaankiina iyo taageerada mar walba aad noo muujisaan. warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tagaynaa guul iyo gobanimo.